السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا له يجر يوتيوب كيجا سود وهذا مر والبقع مفرن وجه فرن قلبي فرن ولاشين عاشر لدن يا لجوجه قبر ولاشي هني سودو هني ما شاء الله بايو كسودو channel كيجا عاشر لدن channel ويلكم كلي هاي ودوا عاشو لما وسلامتين ملكستو جوكتان أصحاب عاشر لدن واني هني ما شاء الله كسودو كلي عاو وريس يرى ولاشين لي لنا إن شاء الله يو هاي إدمه أين تهاي جيل كهذا جوج أما دايرة هذا جوجته شو كان سيقول صدق عرفتي إنك استوى كبر يرتهاي أدا قبل هذا مستقبل كرباء التهاي إن كاور يستهراه دقنك وهذا إذا كل رحمن قبلها يكون شو كان سبان إساء عرفتي يرأي قال إن تلك أوغادان رباه وانقرت أنا قرت رأيي وذرأي قلبنا وأركاش كان سيدا هذا الجيل شو كان سيدا هذا الجيل هاي رأيي قلبنا وأركاه واقرت محاكوز قري وحاكوز قري وليش قبله وحكوش كان سنايا بقول كيسلاش إسلام ما عاد هاي بركة وضطا سيدا محل ليه جري آد وجيفتا والله جركاق ما كأرك قفيه برنجة إذا أجل شو كان سبب لو أنت يعني تتعاوشي دون حكام وهين كرت معها واقرتي محاكوز قري وحاكوز قري وليش قبله وحكوش كان سنايا بقول كيسلاش إسلام ما عاد هاي بركة وضطا سيدا محل ليه جري آد وجيفتا والله جركاق ما كأرك قفيه برنجة إذا أجل شو كان سبب لو أنت يعني تتعاوشي دون حكام وهين كرت معها وحكا داو مجرم بقول كل سلاش ما يدي حكا داو أوكي dadkii hore haday magaciisa shugaansigooda uu fiicnaa oo si fiican wanaag badan ay u hadli jireen oo diinteena xataa markaas dadkii hore yani anaan raacsana laakiin dadka hadda jooga waxa dhaaftaa taabashay leeyihiin gacmaha ka soo say wax u sameynaysaa say wax u ahaa magaciisa u rabtaa jirkaadan ka helay qofka bini aadam shugaansigiiskaas maaha absolute taas maaha laakiin boqolkiiba sagaashan sano wiilasheen hadda saasaa u bateen way u malaysaa oo maxaa koos gareeya is leedahay maxaa ugu wacan jaahilnimo ma ugu wacan ayagoo weliba shukaansiga garanaynin shukaansi garasho maahane iree magaalnimay moodaan ee ma u geysan in yacni shukaansi aqoon daro u geysata maaha laakiin boqolkiiba sagaashan sagaal waxaa u geynaysa inta reer magaal iska dhigaa gaaladan isku meel dhigayaan ka daba tag is leeyihiin haddaa tiraahda maanta waxaan waa dambi walaalo ma sameynayn ama naga daa waxaa lagu leeyahay maxaa reer baadiima haddaad ma baadiga soo gashay waa gartay baadiima hadda kasoo gashay qof reer magaala markaan dariiqa ku arkaayo ku moodaayo kadaa moodaayo waa markaa tataabashadooda iyo waxaas adliid boqolkiiba sagaashan sidaas isku dhaay qof reer baadiyaatee laksaa ku moodaayo igmaana noqon aa lagu dhahaa adiga shukaansiga iyo haasaawihii lalahaab waxaa kasoo horeeyay gacan waa niman intaa dheerta intaa hadday kasoo horeysa maxaa lagu sheekaysanaa shukaansiga mustaqbalka ma rabo maba kaaribiba sababtoo as muxuu rabaa taabashadaas iyo habeenkaas inuu wixii haay isaga kaafijiyo subxaan allah intaas dan yani dan kale maanta oo yaa la guursana marka waa yahay ma jirto wuxuu sameynaa qoftaas maanta uu saas yeeloo kale بريح كلية إن شاء الله كاهلة بس يعني من المستقبل عسكري تاني مربين waxa hadda socda markaas gabdho yar yar oo kale oo markaas hadii rabaan qaarkood oo iska dooranayaan cidooda ka dooranayaan ama iska miskiin iska asturan oo gurigeeda joogto tanna asaga marka hore qadka ka saaray iyadoo goor fiican iska eego iska asturan hadda asaga qadka bixisoo hadda jeceshahay oo ana jecel laga yihiis maxaa ay sameeyay قصب مي أنا قعميس كسر سمايو ها ما جعلنا ما نيجعل وحا إلا ذا مركو كجعلنا حتى يقول السر ريالتي أنا جعل كسر جعل ضبك يا حتى ما ركض
aysan xumaantiin rabin boqolkiiba 99 ma aragtay waxa asid madaxiisa jecel oo qabta wax kasta u samaysaa gabdhaha inta badan gabdhaheena yaryar oo loodka gabadhii waxay leedahay anigu waa ku jeclahay sidaas ku rabaa runa ku rabaa jecelkaaga kasuule inaa jeceshaa maxaan ku ogaan karaa inaa jeceshaa oo naftaada migu aamini kartaa okay waxaan ku weydiinaa maxaa ku ogaan kartaa markii gabdhihii la dhaho gabadhi jecelkay qabtay muxuu noqon karaa gabdhaha iskooda mid maaha kuwa waxay ahayd iskala sheekayso kuwana jacayl waaliyo ninkan indha ahayn ma qabto haddaa ka tiraahda waa ka daacad haddaa tiraahda ninkan wuu kuu xun yahay waxaa u malaysaa inaa ninka ka rabtay adiga damac kugu jiro haddaa walaaltini ku tiraahda ninkan saasuu magaalada ku sheekeeya asagoo xataa ku shumin wuxuu dhahaa gabdhan anaa kasoo daalay horta sheekadaas way soo badatay waa runta erayadaas dhowr qofooda gabdhaha wiilkii maanta aad boqolkiiba 99 wiilka aan maanta diidaa oo tiraahdaa qofkan ani ma rabin bir halkaas wuxuu la taagan maalin ma igu aragta adina la socdaa waa sax maalin walba arkiraa gabaraad waa shukaansan kartaa waa kasoo dhammaysta hal xaba iskuma hayso iyo isku kaa macaaneen waxba iskuma hayso wax isku hayso ma jirto wallaahi waxaa laga yaabaa in sokorkaaga xataa taaban ila gabdhaas kamid ma qaarna waa la taqaana lama taaban waxaa laga yaabaa inuu korkaaga taaban laakiin wuxuu aaminsan yahay markuu qofka kale ku arko qoftaana anaa kasoo daalay nolosheeda maxay ogtahay ninkii kale xataa damac kaaga jiro kugu diraaya taasaa dhibaatadeeda leedahay oo kugu diraaya markaas kii kusoo damci ilaa wixii qofta hebel kasoo dhamaystay ayaga dhana isqalsiiyaba waa isha hadda hal maalin ka soo qadka wiilkan midaa diiday ila dadka isku dooq maahan midaa hadana ogolaanaysaa kii aa ogolaatay ila daacad kale waa lagu soo diraa laakiin adi naftaada iyo galgacayl oo la leeyahay macnaha qoftaan anigaa soo maray adigana asagii wax ma ogo adiga daacadleeyahay ninkan wuxuu isleeyahay xabadan buu kasoo dhamaystay isaga sii dulmar ninkan buu kasoo dhamaystay mogta kii hadhow isqabanayaan kasoo hay qofta ka hor warka ii kala kartusaa sheegaysa waa wallaahi maysan aragna haddii la rabo taas camal horta sharaf dhac way gabdhaha inay sharaf dhacaas lagu keeno ma fiicno haddaa dhalinyaro leeyahay dad yaryar markay tihiin waxaa fiican sharaf iyo wanaag dadka hortooda la soo shukaansan jiray shukaansi waa loogu horeeyay hadda ninka laakiin maxaa keenay maxaa koos gareynaya hadda inay gabadhi inay iyadana waxay isleedahay sharafteeda waxay ku ciyaaraysaa gabadhi run u jecel ku ciyaaray sharafteeda أنا waxaan kugu nafteeda naftaada ugu aamin kartaa waa kugu aamin karaa hay maxaa marka hadda ku aamin inaan isdhiigo miya boqolkiiba 90 dad gabdhaha isku kartina maahan isku aqlina maahan waa run to waxa u cad ka warkeena ka wajcisha sama naagahan adiga caasha maanta dhis maxaa qofiye caad iska dhisan way adiga wixii ka dhiganaysaa cado iska dhaaf ninkaan halka dhahay iska dhaafta tishaad eeda isku taas beenta ma anta gabdho badan oo xajirta ama way ku qoori lacdahay waa lagu ordaa wiilkii oo istaqaanina warkii loo geeyna wiilkii oo ku yaqaan wajiga uu bedela sababta qoftaan ku soo dirto already waxa tiri naaqas ila ma karanto saas ayadina waxa ku kalifaa jacayl information ka weydiisay waxa u sheegtay talada aad la talisay oo dhan ma jirto asaga already ba haysto taas ma la yaabay laakiin waxaan la yaabsanahay ragga asoo gabadha haday diido ahaayo qoftan ana soo maray wallahi way bixin taas mid oo ragga aan rag way idaleen wadanka hadda wili special anaga aan ku noolnahay way idaleen way ku bateen way idaleen rag yani way idaleen waan ila dhasheen wax yani ayagu aan ku dacaydinay ama ku haysta ma aha laakiin boqolkiiba 99 saas waa hadda isku sheegay ay asoo shukaantada ku aragtay kugu inkiraay aniga waligaa naag ma fiirin hal gabar isoo martay bas waxa laga yaabaa xal inuu soo arkay ahmad isoo socdo horta wiilkaasna inta ka salaamay magaciisa sheegay laakiin waxa la yahay thank you wiil Soomaaliyeed oo ka dhacsan noloshiisa markan ما شاء الله waxaan leeyahay sida hadda ku dhaqanto waa fiican tahay walaalkay horta waxa tahay qof aad u wanaagsan hal qofna lama dhihi karo dhowr qofooda Soomaaliyeed wiilal fiican aad u wanaagsan oo si runta ah ka hadlaya jirto oo gabadha mustaqbalka rabo laakiin gabdho ayagana sidoo kale ay jiraan oo ayagana ay rabaan way jiraan musdadeel rabaan iyo gabdho xisaab laakiin gabadh walaasha
ha ku ciyaarin marka koowaad su-aashan hadda waxaan ku keenay waxay tahay dhowr maran gabdho badanaan ka arkay aan la wareystay laakiin by taleefonka inay iisoo galaan ay diyaar u yihiin horta marka koowaad intay awoodooda adiga hadda maasha allah nasiibaad u yeelatay horta inaad ila soo fariisato caawa magaciisaan kaa wareysto kow gabdho qaara waxaa jirta oo ayaga u saamixi waay waqtiga u saamixi waaye inay imaadaan oo ani aan wareysi ka qaada aan ka wareysanayo shukaansigii waaga hore iyo kan hadda socdo oo wadamadan aan ugu imaanay maxaa different u dheh gabdhihii maadaama nin kastay shukaansadaan ay kala tagayaan sababto reebeediyaa tahay romantic ma tihid ma dhaqmaysid mustaqbal waa la gaarayaa inta ka horeysa laakiin aan romanticnimadii aan ka arko aan romanticnimadii romantic markaa gacan in laisla aadamaa magaciisa boqolkii sagaashan waxay ku leeyihin adiga romantic ma tihid ani naagta aan ku qancaayo gurigeysana hortaan arkan inay qof romantic oo shidan tahay taas ani qaladaan u arkaya gabdhihii hore soomaaliyeed markay gabadha wiilka la sheekeysanayo ma lasla aadi jirin gacan iyo sheeko iyo magaciisa iyo wax xadgudub ah gabadha wiilka markuu ka helo waa la sheekeysan jiray sharafay ku kala magaciisa kuguusan jireen hadday kala tagaayna sharafay ku kala tegi jireen laakiin ma ahan gabadh walaasha inaad adiga gacan dhaaf iyo waxaan loo joogin aad la imaado gabadhay nafteeda kuma aaminayso maxaa yeelay gabdhaha hadda socdo oo magaciisa hadda soo baxay ama wiilasha hadda soo baxay waxaa u bateen gabdhihii gabdho badan oo la qayaana waa jirtaa gabdho la dilaa jirto gabdho la kufsadaa jirto gabdho meel walba ay ka dhacdaa sheekada ma ahan in wadamada aan ku noolna keligeed ma ahan meel kasta dhibaatada haysta gabdhaha laakiin gabdhaha inaan wareystano waa rabaa insha allah wiilashana inaan ka warkeeno ayagan waxa ku koosgareeyay inay gabdhihii gacan dhaaf iyo heer magaal ma tihid iyo because wadan shisheeye haddii la imaado ma ahan inaad dhaqanka gaalada inaad samaysid aad gabadhaan soo baraweyna aad dhahdid adigood soo baraweyna gurigaad markaa gestibadina gabadha haddaad ka heshid adiga ku anfacda horta waxaa la iska fiiriyaa 3 maado weligiina iska fiiriye qofka horta dhaqan wanaagsan ma leeyahay akhlaaqdiis ma saxan tahay kow qof diin leh ma yahay horta labo iyo qof dabeecadihiisa alqataa qurux lama raaco lacag lama raaco laakiin dhalinyarada marka haddaa weydiiso waxay ku dhahayn yaa la guursanaya haddii wiilkii uu kudho yaa la guursanaya gabadha ee kudho yaa la guursanaya maxaa koosgaray inay dhibaato waxaa lagu gaaraa dadka sheekeysi meel isla dhigaa qofkan dabeecadiisa inay wax masla inay isfahmaan ani maanta nin rabo ama aan rabo wallahi runtaa fiican kuma xujiyeen ani lacagii adduun waa gartay midda koowaad ku xujiyeen qof diin iyo akhlaaq leh ma yahay laakiin lacagii adduun waa la helaa iyo qof dabeecad leh adigna ku ixtiraama marka qofka aad inuu banaanka ku ixtiraamo adna uu gudaha ku ixtiraami doonaa laakiin haddii oo gabdhihii lacag nagu xijeen awle gabdhaaskooda mid maaha dadna lacag ku xijeenaya dadna lacag kugu xijeenaya laakiin wiilasheena soomaaliyeed boqolkiiba 9 marmasi waxay ka dhiganayaan gabar la guursado malag waa been aniga kelmadaas waxaan ka qabaa been inay tahay anoo oo gabadh u hiilinayn oo wiilna kasoo horjeysanayn waa been kelmadaas waa been waa gartay idinkana jawaabta idinkaa la idinka rabaa guys waxaa loo baahan yahay maxaa koosgareeye jiilka hadda joogo dhalinyarada ah maxaa koosgareeye guurkooda inay magaciisa markay ku heshiiyaan ay close ay ku noqdaan alele warka ha gabdhi iyo wiilka dad waxaa arkaysaa baayo xitaa waxaa hadda kaaga sii daran dhaqan rag u badan yihiin adiga jiilkii hore maa tahay mise jiilka dambe wuxuu rabaa in u tilmaamtid sidai ugu guday wow والله العظيم والله العظيم وورك يقول عصب وتاس على عاو عصب والله وبالله وتلا صدح الموعله متح موعله بما لو دحتا waxaa ku sii kaga sii daran dadkii horaata umaleena sababta saacada maxaa ku dhigay hadii la tiraad gabar aan weligeed u guursanba waxa marna ka timid ha xilliga maxaa ku dhigay jiilka hore maata okay xaga miya ma inta xaga inta xaga weliba been sheegay inta baan ku arkay intaas wadanka aan joogo taas nasiib xumo waa taas because gabar la weydiinayo maxaa tahay sheeg la dhahay weligeed ma arag ana waa sheekada cawada igu cusub
hadday kugu cusub tahay inta ku arag haddaad tiraahda dadkii horaa ah lacala u sir warintisa dadkii horaa tatana waxa sacdaa la soo gaarto waa dareen adduunka meesha kuma haysid dareenka ma yaqaanaa miyaa qofka bini'aadamka wax ilaahay u dhaliyay maaha jarjaris iyo jarjaris la-aan inay ku timid gabadha markii la gudaa ciyaal ahayd maxay la socota ayada gudooba may fahantaneed muxuu yahay maya qolkii sagaashiisa dadkii hore waa ilaa waxay isku dhakinaysaba markaasa kuwa mashalanaya lacaga isku dhakinaya dadkii hore aaday sharaf u lahayn gabar dhowrsana la helaayo gabar fiicana la helaayo laakiin gabar adiga aad kula jaan qaada gabdho badan oo hadda magaciisa ayaga jiilka dambe oo idab lehna way joogaan gabdho hore oo jiilkii hore ah sheegaysa dadka waa sheekada akhlaaq lahayn way jiraan kuwa dhowrsan way ku jiraan markaan dadkii inaad adiga seem ka dhigtay horta ninba ilaahay dareenkiisa ilaahay u siistay waa run saa sheegtay laakiin you have to inaad adiga erayadaas gabdhaha loo isticmaalo waa laga fiican yahay sharaftana kuma jirto dhaqan oo markii hore loo garanayo maahan waxaad iska dhigaysaan sida gaaladii camal ha iska dhigana dhalinyaro axmed ii sheega dhalinyarada u dhaqmaysa sidii gaaladii dhaqankeeda inay qaataan war dhaqankaada ha bedelin ayaga haddii tooda magaciisa ay bedelaan aad qaadatid adig taada ma qaadanayaan gabadha walaasha sharafteeda ha ku ciyaarin ha ku xadgudbin laakiin insha allah kilibkan kaliya kuma koobnaanayo waa mid magaciisa sii socon doon gabdho badan aan ka wareysan doon jiilka hadda socdo shukaansigooda see u artaa insha allah su-aalo waaye wiil kaligiis kuma koobaayo gabadh kaligeedna kuma koobaayo cid walbaan ka wareysan doonaa inta nasiib ilaahay oo uga dhigana magaciisa oo aan la kulmaayo hadduu ilaahay idmo by telefona insha allah aan soo geli doonaa aan ka wareysan doono hadduu ilaahay idmo qof alla qofka diyaar u ah wareysigaas inuu asagana dood ka qabo ama ra'yi ka bixinayo way soo wici doonaa hadduu ilaahay waa sheegi doonaa waqtiga la isoo wacayo iyo taymka aniga aan ka qaban doono hadduu ilaahay dhammaantiin waa idin wada salaamay caawa intaasay nooga eg tahay walaasha adigana aad iyo aad u mahadsanta sidii sharafta leh aad magaciisa iiga ogolaatay inaan kaa wareysto وانا ما حسنت ساكرة أدينا وحي حالة كل إن شاء الله واتسكلا هذا الدونا إن شاء الله منك الديار وأهل تلاقينك أيام قوة هذا الدونا هدول هاي السلام واتساب أما سناب شات لغض منك نقطة أيقل هذا إذنكم ونحسن آدي آدم وما سنتين لما أنت ميل بقى كل شيء هنا أدون كد على ديسة وحين الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا السلام عليكم.